iyadoo laga duulayo dardargelinta adeegyada bulshada iyo dhamaystirka mashaariicda horumarineed oo ah ballanqaadyadii gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo uu heliyo taliyaha booliiska Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay si wadajir ah u dhagax dhigeen xarunta maamulka iyo saldhigga deegaanka Jasiira. dhagax dhigga mashaariicdan ayaa ah mid aad muhiim ugu ah deegaanka mana jirin xarun rasmi ah oo ay ku shaqeynayaan maamulka Jasiira. dhagax dhigga kadib waxa warbaahinta ugu horeyn la hadlay gudoomiyaha degmada Afgooye iyo taliyaha booliiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. safarkeena muhiimadiisu wuxuu ahaa inaan dhagax dhig halkan waxa aan dhagax dhignay xaruntii maamulka deegaanka ku shaqeeyay iyo saldhig booliis ayaan dhagax dhignay. safarka ka horeeyay waxaan ballan qaadnay inaan saldhig booliis halkan ka hirgeli doono. saldhigii booliiska iyo xaruntii maamulka dhulka hadda maanta aan soo dhagax dhignay waxa bixiyay reer Jasiira oo maamulkeeda ugu horeeyay aad iyo aad halkan ugu mahad celinaynaa. waa niman dawlad jecel si dhaqsiyaha badan dhismihiisana soo gabagabeynayna si dhaqsiyaha badan oo howlgali doona insha Allah. ciidamada booliis oo ku shaqeey doona deegaankan ku qoran doona dhalinyarada deegaankan ka qoran doona halkan oo ay ka shaqeey doonaan xaruntii deegaanka oo ku shaqeyn lahaa. codsiga wuxuu ka yimid bulshada ku dhaqan deegaanka Jasiira maadaama hadda aysan meelo oo rasmi ah ay ku shaqeeyaan oo saldhigana aad u dayactiray macnaha diif ka muuqato u baahan yahay in la dayactiro. maamulka iyo deegaanka Jasiira waxa ugu mahad celinayaa hawsha iyo qaabka ay wadaan iyo energy ka muuqdo. sidoo kale waxa waaye macnaha iska wax u qabso ay ku sii bilaabin doonaan labada goob aanta ka dhawaaj. Maxamed Ibrahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xusay duruufihii kala duwanaa oo ay ku shaqeynayeen maamulka deegaanka Jasiira waxaana uu tilmaamay in dhismaha xarunta maamulka iyo saldhigga deegaankan ay dabooli doonto baahi fara badan. intan kale waxaan soo dhagax dhignay xaruntii community centerka ama xaruntii deegaanka ay ku shaqeyn lahaayeen maamulkiisa. saan ognahay deegaanka Jasiira waa gobolka Shabeellaha Hoose ka mid yahay, degmada Afgooye ka mid yahay, Koonfur Galbeed ayuu ka mid yahay, laakiin xarun rasmi oo maamulkeeda uu ku shaqeeyo ma aysan jirin. garab rarate iska ahaa jireen balse hadda waxaan soo dhagax dhignay maanta oo aan ku guuleysan inaan soo dhagax dhigno in xaruntii meeshii laga dhisi lahaa dhulkaasi oo dadkii deegaanka ay baxsheen sidoo kalena ay ballan qaadeen inay contribution-kooda ama qaaraankooda qaybtooda ugu weyn ay ka qaadan doonaan. annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhisitaankeeda sida ugu dhaqsaha badan u fuliyo. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa maamulka gobolka ku bogaadiyay dardargelinta adeegyada lagu horumarinayo bulshada. si gaar ah wasiirka ayaa faray in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo dhismaha xarunta maamulka iyo saldhigga deegaanka Jasiira. waxay noo tahay farxad iyo rayn gooniya. waxaan rajaynaynaa in ay mashaariicdan ay bilaabeen ama ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka inay u horseedaan kuwa kale in la dhagax dhigo insha Allah. waxaan rajaynaynaa community-ga ku dhaqan sida diiran noo soo dhaweeyay inaanu ka warqabkooda sidii hore u dhaamin doono insha Allah. ay dowladda Koonfur Galbeedna aan gaarsiin doono ilaa ay madaxweynaha horumarka iyo dadaalka ay hayaan oo iskooda ay soo xilqaameen dhul inay bixiyaan oo deegaan maamul laga sameeyo iyo inay saldhigga booliiska dhulkiisa ay bixiyaan taasoo ah gool weyn. Aweys Moomin Xasan Aweys Okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose.